سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. فرينتا maanta waxay noqonaysaa nasiixada. Maalmaha kamida waxa dhacday wiil dhalinyaro ah oo masaajidka tukanaya ayaa mobilkiisa wax ku soo dhacday hees. Dabeetana nin ku dhinac tukanayay baa intuu dhirbaaxay wuxuu ku yiri war miyaanad xishoonayn oo Ilaahay ka baqayn maalinta yawmil qiyaamah naarta lagu gelinayaa kala bax masaajidka heesta dib oo dambeysana ha ugu soo noqon masaajidka. wiilkii dhalinyarada ahaa wuu naxay isagoo kurbanaya ayuu masaajidka ka baxay waayo waxa loo sheegay in maalinta yawmil qiyaamah uu Ilaahay subxaanahu wa ta'aala naarta gelinayo. sababtaas uu masaajidka uga baxay waxaanu sameeyay masaajidkii uu iskaga tagay. maalin ka bacdi ayaa wiilkii dhalinyarada ahaa wuxuu tagay meelaha lagu cabo alkohosha iyo khamriga kadibna wuxuu cabay koob kamida koobka khamriga waxaana dhacday in koob khamriga uu dhulka kaga dhaco kadibna uu siri sidii masaajidka lagaga soo eriyay ayaa halkana lagaga eriyay. laakiin shaydaankii baa ka xoog weynaaday oo waxa dhacday ninkii meherada lahaaba wuxuu ku yiri ha warwarin hana baqin wuxuu maaha ee waxaad samaysaa iska daa waxan way dhacdaaye. kabacdi wiilkii dhalinyarada wuxuu caadaystay ama uu joogteeyay inuu imaado meeshii khamriga lagu cabi jiray. taasina waxaa ku kalifay in nasiixada ama qofka si wanaagsan wax loogu sheego ay ku kaliftay inuu meel khamriga tago. marka walaalkay waxaan kula talinayaa inaad mar walba ku dadaasho inaad qofka si wanaagsan oo nasiixa wax ugu sheegto lacalla wax laga yaabaa inay anfici doonto. aad iyo aad baad mahadsantihiin.